السلام الله عليكم ورحمة وبركاته ولا الله كحرن جنال كحكمة تيوب أي يوتيوب كسور هذا مقالس طاود يعني أنا مقالكم بود قليل فضلا هذا جنال كعصب تاعي سبسكرايب صار فيديو أنا لايك صار waxay noo tahay dhiirigelin waad ku maas dhowrkii bilood la soo dhaafay waxaa la hadalhayay maxay shirkadda Facebook u bedeshay magaceeda iyo waliba fadeexadii ay Facebook kala kulantay mid ka mid ah shaqaalaheeda iyadoo ka eedeynayay inay Facebook iibiso xogaha gaarka ah ee macaamiisheeda ama isticmaalaan barnaamijkeeda Facebook intaa kadibna waxaaba khadka ka baxay Facebook iyo waxyaabihii sida WhatsApp iyo Instagram oo shaqada joojiyay dhowr saac intaa kadibna Mark Zuckerberg ayaa shaaciyay in shirkadda magaciisa Facebook uu u bedelay Meta حتى هذه مقطع كعسب يا شركة فيسبوك معها لكن مدعس وكون سجال بقول سجاشني اللبضي وكون سجال بقول سجاشني اللبضي لين اللي في أمريكنا أيا اللي في فيسبوك أما شركة خيالي والله ما قدري أما هو بحي اسمه كراش شركة خيالي وقرينا واحد كهل لسيسي تدكو أما تدكو سكول حريري كرانسي خيالية أو 3D وأنا فكرة الميتافيرس ماشي كتمد عالم خيالية وأنا هين كان لبطها أما الحقيقة إنه هنكون والله haddaba kelmadda metaverse waxay kulminaysaa labada kelmadood ee ah meta oo macnaheedu yahay ka dambeeya iyo verse oo ah kown ama adduunka oo macnaheedu noqonayo waxa adduunka ka dambeeya ma waraa al-kown carabi ahaan Mark Zuckerberg isagoo sharaxaya magaca Facebook sababta uu bedelay ee uu bedelay Meta wuxuu yiri waxay waafaqaysaa aragtida caalamku ka aaminsan yahay tiknoolajiyada ama horumarka tiknoolajiyada ee lagu talaabsan doono isagoo shirkadihiisa kala duwan iskugu soo keenay magaca Meta ama Meta haddaba maxay tahay waa caalam khiyaaliya la iskula kulmayo si khiyaaliya si aad u gasho caalamka khiyaaliya uma baahnid inaad soo horfariisato kombiyuutarkaaga ama laptopka laakiin waxa laga baahan yahay inaad xidhato muraayado smart ama waa shay aad madaxa gashanayso adigoo jooga shaqadaada gurigaaga iyo meel walba aad u baahan tahay kadibna waxaad dooran doontaa shakhsiyad 3D oo adigu matalisa waxaana si dhib yar ku booqan kartaa saaxiibada caalamka metaverse adoo isticmaalaya adigoo si wada jira u ciyaari kara ciyaaro kala duwan si kooban metaverse waa caalam shabahaya ama u eeg caalamka hadda aynu ku noolnahay oo wax walba oo qaban kartid waad qaban kartaa xaga laakiin waa si khiyaaliya hadda tahay dadka socodka necab ama caajiska ah waa fursad waayo gurigiina meel loo madhaafisid adoon gurigaaga meel u dhaafin ayaad caalamkaas oo soo maraysaa anything aad ku soo qabsan kartaa caalamka khiyaaliga waxyaabaha soo sheegnay hadda way ka dhacaan adduunka hadda ku noolnahay sida muraayadaha jira ee Facebook iyo ciyaaraha 3D-ga laakiin waxyaabahaas oo dhan weli ma lama gaadhin ma lagu leeyahay metaverse sida uu qabo Mark Zuckerberg oo waa aragtiyo waxa imika la sheegayo metaverse ama caalamka khiyaaliga waxaad joogtaa oo kaliya markaad xirato muraayadaha laakiin markaad ka saarto muraayadaha ma jiraan wixii oo dhan oo caalamkaaga caadiga ah ayaad joogtaa Mark Zuckerberg si uu horumariyo arrintan wuxuu ku qarargareeyay $50 milyan oo dollarka Mareykanka waxaana sidoo kale shaaciyay inuu shaqaaleysiin doono 10,000 oo shaqaale Yurubiyaana si ay u horumariyaan iyaguna mashruuciisa sida uu qiyaasay wuxuu qaadan doonaa waqtiga mashruucani uu qaadanayo waxa weeyaan ilaa 10 sano ilaa 15 sano inta u dhaxaysa taas waa haddii la sii noolaado dad kale ayaa qaba inuu indhaha caalamka iskaga jeedinayo markii uu fadeexada kala kulmay dhinacyo badan oo shirkadiisa ah oo shirkadda Facebook inay xogaha macaamiisheeda ay ka iibiso dad kale taasoo sababta mararka qaar inay dad isticmaala Facebook ay naftis dhaafiyaan ay qudda iska jiraan iyo waliba shirkadda Facebook inay ka qayb qaadatay dagaal sokeeye iyo midabta koor cunsurinimo iyo waxyaabo falal kale oo karaahiye ah iyagoo si dhib yar loogu soo faafiyo page-kooda intaana waxaa sii dheer fadeexooyin kale oo aad u tiro badan taasoo reer galbeedka ku kaliftay inay kasoo horjeedsadaan Facebook waxaana la leeyahay waa sababta uu magaca shirkadda u bedelay Mark Zuckerberg uu nooga soo bedelay Facebook uguna bedelay Metaverse si uu sumcadiisa u laashado iyo sumcadda shirkadiisa dadkana indhaha caalamkana ugu jeediyo wax loo yaqaano Metaverse laakiin cid xaqiijin karta ma jirto ama sugnaanteeda sheegi karta inay Metaverse dhici doonto ama ay jiri doonto metaverse ma aha wax la hubo 100% laakiin ay u badan tahay inay caalamku isbedeli doonto ama isku bedeli doono xaggaas iyo khiyaaliga ay sheegayaan marka loo eego teknoolajiyadan aadka u horumaraysa maalinta ka dambaysa laakiin waxaan rajeynayaa mar walba inaan internetkan teknoolajiyadan aan ku koobnaano intiisa fiican intiisa xunna aan iska dayno videoga maanta intaasuu ku eegyahay fadlan dajalada cusub tahay subscribe saar videogana like saar intaan ku kulmi doono videoga lamida Peace.